iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay deegaanka Filibi ee dhacduleedka magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ay ka soconayeen rabshado xooggan oo ay sameynayeen shacab Koonfur Afrikaan ah isla markaana lagu boobayay goobaha ganacsiga ajaanibta ayna ugu horeysa Soomaalida ayaa istaagay kadib markii wadahadal oo dhaxmaray odayaasha deegaanka Filibi iyo madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed iyadoona labada dhinac la isku afgartay in la joojiyo dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo Soomaalida ganacsiyada kula deegaanka Filibi. Telefishinka caalamiga Somali Channel ayaa booqasho ku tagay goobihii rabshadihii xooggan ay ka dhaceen isla markaana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo halkaasi hantidooda ku beelay waxaana ay kaga warbixiyeen sida ay wax u dhaceen. marka meeshan alaabta noocaal jirtay dadkan mahana albaabku waa noo xiray jiray markaan dadka laga caawin jiray dad oo ku socdo wallahi hadda la xisaab karo inta boqolaha timiday hal togi albaabku la kaceen meeshan alaabta tinkijida fariimaanka waxa sawada ku dayilay markaas hal togo ku kaceen anigana gadaalanka buudno waxaynu soo gashay shalay ayaan xabad soo galnay kastamka xabad iyo community xabad ay yireen soo laabta qaladku waa u dhamaaday inaga qofnimo soo laabta sidaas ayaan soo laabanay ku furnay business gudoomiye ku-xigeenka Safe Somali Community ayaa Somali Channel u sheegay in dadaal dheer ay u galeen xal u helidda arrintan waxa ilaahay qadaray dadaal dheer fara badan in aan wada xaajood iyo isfahan dib ugu laabanay dadkeenii dhibaatadu ka soo gaartay dukaamadoodii walow dadaalkeenu uu ahaa oo kaliya in aan xal iyo wada hadal ku fahansiino wixii meeshaas ka dhacay maahan markii ugu horeysay dalkani Koonfur Afrika ay ka dhacaan rabshado xooggan kuwaasoo lagu boobaya goobaha ganacsiga ay leeyihiin ajaanibta qaybna ka tahay Soomaalida iyadoona shacabka Koonfur Afrika ay caadaysteen dhacaya boobka lagu hayo ganacsiga Soomaalida xilliyada ay dawladda Koonfur Afrika ay ka aqbali weysay codsigooda. Abdullahi Farax Nur Abdullahi Riso telefishinka caalamiga Somali Channel Cape Town Koonfur Afrika.